بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي مهد نمعين بدن بوهي نسي إنه مهد غيرنا عافماد له نباد له هؤلاء الرسل والقرية عينو قبصان له تدكينو إلهي التشويشكي يشكي كسارة السود يعني معلومة بعد قدم بس وما تمد السن ومري تشدر كود السنة إلهي نبصنا الحمد لله مات يرجع عليه الذين أضيء وحوي دارشة مقلي لبعض دارشة سوريين ولا هيدين وحيد عي وحن كبر إنه واحد الله أجعل ستة طورة يدور واحد هذا مركز حسابته وسان تحاسب كلا عدواني وحنا يدعونا كلا إخواني مركز واحد مدة مركز دارشة الدنيا سريين ولا حساب الله ما حسابته وكراه أنا كافي أنا كاهل وأسر أو هو عادي وحين صار مريض أنت طوش مسار ما أنت عرفت هالك عرسك أنا مركز عرفت عليه هرجسنا عليه أنت قلنا عليه وحن قامي إن أوحره أو ما أنت ترتكع على الجرين عبد الرحمن صوابها هو أبو الشيخ وحن آدي أبوك مغضبية إن أنا إستوى أول ورين أو حدر ورتلا واسي وانقاتي قرحة إسراع يدنك الله مغضبية مركل هراء مقاعد هرقيسو أس خلاف سنة دورشو ديقا وتقلبيسو أنا وشوذا ما بعكرتا يودا أس خلاف سنة يسير ريرس أنا يكاشو دورشو لبيذين أودي الله marka suuqa la eego laba aan ribaax karayo joog iyo dib u noqon karayana si walba inuu ku sii daayo ku durdursaan magaalada ana tiidi aad baan kugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan oo maanta wad guuleysatay oday qaatay wixii baad noqotay maanta adaa xilka magaalada qabanaya xisbi iyo inamada kale ma diidana ummaduna saasar hal ku tahay mid kale ayaan ورسادة وحنا كان حين تذكر عدسي تهلت شابيح وبلغها كرتينا بلغها هل عندك وسن أنت يا حكومة الغالي ورش غيره عبد الرحمن أنت كرات من قرين وحنا قلنا كفرين وحنا لا سياسة على سنبا ما فرق عرنت لك ما كعايو سن يدا أول شقين سان لم يدري على تبتشو أنا سوى شقسان إيه أنت كلام حقي كلام تاني قارسية أنا ما هتتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مدحونا جمهورية الصومال مدنا موسى بيحي عبدي ما يقع صبح نقونا خميسة إن شاء الله تعالى عبد الكريم أحمد موبي يبقى صحافتنا بتشوفتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف الموتى أنا نقول كانوا يسووني معنا runtii maantana waan sheegay waan ka hadlay Cabdikariim colaad naga dhaxaysay ma jirin 30 sano saaxiibnahay ilaa 1999 waxa ahayd ku sigaana kaaga fiican yaaniga kaaga fiican anigu waxaan lahaa waxaan dhameystirayaa qabiyooyinkii yaalay Cabdikariim ma wuxuu lahaa waxaan sameeyay magaalo cagaaran waa tartanka dadku waxay u dooranayeen 290 ku baa ka odayeeykiisa waxay soo dooranayeen 17 xildhibaan 17 xildhibaan ma iska dooranayay maayir oo hada cilmiga madaxweynaha inta soo dhowr kulan qaadanay markii dambe aan ka qaatay go'aankii ugu yiri maanta adigu joog iyo duruufo badan leeyahay runtii siyaasiguna ma aha kacrooda waa ka wax kastoo dhacayda xalkeeda ma dhameeya anigoo madaxweynaha iyo dalkayga iyo magaaladeeda qadaynaya inaan Cabdikariim la shaqeeyo ayaan qaatay aan golaha deegaankana la shaqeeyo aan oday la shaqeeyo noqdo kamida xubnihi la soo doortay labadii waa baad ku macnaaqaya madaxweynaha baad ma santay assalamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim marka uu yaraysaa madaxweynaha waan macnaaqaya tan iyo maalintii aan baaqo soo diray madaxweynaha arintan soo dhex galo sidii wanaagsaneyd ee madaxweynuhu wuxuu isaga saaray inuu arintan galo hargeysa mideeyo ay midnimada hargeysa doorashan u galay
waxay ka bilaamaysay in xildhibaanada 17 la doortay madaxweynahoodii iyo odaygoodii inuu dhex galo codka shacabka inta badani marka sharciga loo noqdo de haddii la idhaa xildhibaankii ugu codka badnaaba noqonaya maayor sharciga ma waafaqsana sharciga waxay ku waafaqsan tahay in 17 xildhibaan ay shirka galaan ay codeeyaan ay dabeetana doortaan qofka ay doonayaan laakiin madaxweynuhu isagoo mahadsan shacabkiisa jecel inta badan ixtiraamay oo tixgeliyey baaqa anagu aan dirnay waxaa baaq aan ku doonaynay in bal dadkaa faraha badan ee maanta markii ugu horreysay si ku xora qabyaalad u codeeyey ka codeeyey xaafado iyo degmooyin kala duwan qofkii ay u codeeyeen in markaa la doorto madaxweynuhu arrintaa xil iska saaro runtiina madaxweynuhu dhowrkaa cishee tegey si mas-uuliyad leh madaxweynenimo leh odaygii qarankaa ayuu arrintaa u galay una dhamaystiray walaalkii cabdiraxmaan maayarkaygii hore weli waa maayar isagaa weli maayara waxaan uga mahadnaqayaa in isagoo xaq u leh inuu mar labaa tartamo isagoo xaq u leh marka horena sheegayna hon lahaa inuu isaguna madaxweynihiisa codsigiisa ka aqbalo oo runtii aniguba aan aqbali lahaa haddii madaxweynuhu uu iga codsado waxaan madaxweynaha uga mahadnaqayaa inuu danta hargeysa ku horreysiiyey danaha xisbiyada waayo markaad eegto arrintan siduu u maamulay wuxuu u maamulay si lexjeclo leh hargeysa jacayl leh madaxweyne dadkiisa iyo magaaladiisaba jecel waayo hadduu indho xisbi ku eegi lahaa xaajadu halkan ay caw soo gaadhay may soo gaadhin madaxweyne kaaga mahadnaqaya aad iyo aad baan kuugu mahadnaqaya cabdiraxmaan maayar aad iyo aad bay mahadsan tahay waxaad qaatay go-aan geesinimo leh waxaad ixtiraamtay madaxweynahaagii waxaanagana noo farxada waa aragnimadaadii inaad golaha kula jirto ood nala joogto waxaad insha allah noo noqon doontaa odaygii golaha deegaanka iminka degi kumaha waxaad noqon doontaa odaygii hargeysa waxaad noqon doontaa maayarkaygii hore saddexdaa taytalna saddexdaba ixtiraamkooda waad naga helaysaa insha allahu tacaala shaqo wanaagsan baynu wada qaban waxaanu ka faa'iidaysan waa aragnimadaada aad iyo aadna waan kuugu mahadnaqaya